aniga waxaan ka mid ah dadka aftida in laga qaado u baahan ee inuu cadeeyo masiirkiisa inuu meel saara u baahan baan ka mid ah ogaadeen ma ihi laakiin oo laf baan ahay oo hogaamiye ka ahay hadii la yiraahdo ogaadeen kaliya aftiha laga qaado aniga hadlahay hadda la wareysanayaa meesha ka bax قدلتي وقول قدلتي حريمو يا وهولوغا وأقول لك يا وهولوغا قبض ويد شيء يا وهولوغا عنقر تاديني يا وهولوغا شعبكو كنت ذوق يا وهولوغا يدقين منيمو يا وهولوغا ويقيدمو يا وهولوغا ورتي ذاتكاي يا وهولوغا كربوزين ذوق يا وهولوغا أبنا ذكبيو يا وهولوغا وقرارو يا وهولوغا إشكايقو قاد هذا كتابو عدم صوغاليو قاد كدو ديشكايقو قاد هذا كقبو عدم صوغاليو قاد كدو aad baan soo dhaweynayaa bahda warbaahinta dhamaanteed waan salaamahayaa waxa kaloon aad iyo aad u salaamayaa shacbi weynaha Soomaaliyeed ee wadanka ogaadiniyo ku nool meel kasta naga daawanayaan jabhadda ONLF waxaa la aasaasay 1984 August ayaa lagu dhawaaqay dhowr marxaladood oo muhiim ah ayay martay marxaladda koobaad waxay ahayd marxaladii qarsoodiga oo ilaa iyo 1991 koog 6 sanadood ururku wuxuu ka dhex shaqeynayay laba dawladood oo geeska Afrika xoog ku leh isla markaana aan ogoleyn dhaqdhaqaaqiisa iyo socodka isagu u wado dawladda Soomaaliya oo u arkaysay in maamul ka hoos baxin haya dalkii iyadoo ay rabtay inay xoreyso isla markaana laga yaabo inuu hamigeeda ku jiray inay iyadu maamulkiisa qabato dawladda Soomaaliya fikir ka qabtay iyo dawladii Ethiopia ee Mingista Haile Mariam xukumayay oo iyaduna atii laga xoroobahayay ee uu darteedba u abuurmay ururku labada dawladood markii ay dhaceen 1991 wuxuu ururku galay marxaladii labaad marxaladaas waxay markii uu wadanka soo galay uu si toos ah dadkii faraha badnaa wadanka soo galay kamid ahaa isla markiiba wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqi siyaasiga ahaa xubnihiisii si toos ah hawshu u bilaabeen xaruntiisii koobaadna wuxuu ka dhigay magaalada Dhagaxbuur waxaa deganaa markaa golihii hogaaminta golo la oran jiray oo uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka xilligaasi nin la oran jiray Sheekh Maxamed Sheekh Indhabiraale nin la oran jiray baa markaa gudoomiye ku-xigeen ururka ka ahaa Sheekh Ibrahim Cabdallah oo gudoomiyaha ururka ahna dibaddu jiray gudigaasi halkan ka howlgalaya waxaa kamid ah Axmed Nuur Samwado Cabdirasaaq Sheekh Maxamuud oo kay la yiraahdo Ilyas Sheekh Cali Siyaad iyo xubno kale oo fara badan oo howlwadeena ah annaguna qaybtaas aan kamid ahayn halkan aan ka howlgali jiray ilaa iyo 1992 wuxuu ururku ahaa wuxuu u shaqeynayay hab balaaran oo maartay iska baahsan gobolada ku baahsan markii 92 la soo gaaray bishii January waa kii January formation weynihii labaad shirweynihii koobaad ee qaranka ee jabhadda ay qabatay oo ka dhacay Garbo ee meesha la yiraahdo 11 maalmood buu shirweynahaas socday waxaa ka soo qayb galay 2110 ruux waxaa lagu ansixiyay hogaankii jabhadda oo golihii dhexe ah waxaa lagu ansixiyay barnaamijkii siyaasiga ah waxaa lagu ansixiyay dastuurkii waxaa lagu ansixiyay dhismihii ciidamada waxaa lagu dhammaystiray hogaamintii uu ururku wadanka ku maamul lahaa oo dhammaystiran isla taariikhdaas 10 maalmood kadib waxaa xusuus mudan inay dhacday dagaalkii Birqod ee weynaa oo nimankii Ethiopianka ahaa ee xilligaas wadankan qabsaday oo nimankii Tigreeg ay hogaaminayeen ay u bixiyeen Matoamisti dagaalkaas dagaal weyn buu ahaa daandaansiga iyo gafkana iyaga lahaa waxa ku dhimay dagaalkaasi jabhadda waxa kaga shiiday 5 nin guud ahaan marka la isku daro ciidamada Ethiopia oo marka Tigreeg ay hogaaminayaan waxa kaga dhintay 105 iyagaana magaca u bixiyo 100 Matoamisti afkooda in lagu yiraahdo mananayaa qoladaas iyaga bixi
marxaladaasi way socotay waxaa intaa dhex socday isbeddelkii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqaysay bishii 7aad markii 1991 bishii 6aad waxaa ka dhacay shir magaalada Garogo'an shirka waxaa laga hadlayay waxa laga yeelahayo shirkii ay ku baaqday TPLF ee ahaa in sabab lagu qabto oo lagu dhiso dawlad kala guur ah dadkii xilliga joogay waxay isla garteen in ay muhiim tahay inaan xilligan xaadirka wax kale la qaban karin laga war doono bal siyaasadda cusub ee TPLF ay ku dhawaaqday oo ah in la dhisayo dawlad kala guur ah oo ay ka soo qayb galaan mucaaradadii faraha badnaa inagoon taariikhdii TPLF iyo OLF dhexmartay aan dib ugu noqonaynin bishii Juulaay 1991 shirkii charterka loo bixiyay ee Addis Ababa ka dhacay ururku ka qayb galay waxaana ka soo baxay isbahaysi OLF WSLF la yiraahdo oo labada urur oo WSLF-na ururkii soo dagaalamahayay OLF la dhaqdhaqaaqii markaa taagnaa xoog badnaa oo la isku mideeyay dhaqdhaqaaq noocaas oo isbahaysi aba ka soo baxay xilligaana waxaa hawsha wada Sheekh Cabdinaasir muddo isaas ku socotay Sheekh Ibraahim wuu yimid markii uu yimidna waxaa ku baaqnay shirka Garbeen hadda taariikhda soo sheegnay shirkaas la qabtay markii shirkaas uu dhacay shirka lagu soo kala baxay OLF waxay u diyaar garowday inay nidaamkeedii siyaasiga ahaa ee ay dalka ku hanan lahayd shacbigana ku hogaamin lahayd isla markaana ay ku gaarsiin lahayd mabaadi'dii gobonnimo doonimo inay gaadho si kooban markaan u dhahno dawladda Itoobiya waxbay barbar waday iyadoo charterku uu markaa jiray oo la saxeexday in 2 sano si nabadgelyo lagu wada noolaado 2 sanada 6 biloodna lagu daro hadii ay markaa suurtagal noqoto muddada kadibna qowmiyadii damacda inay go'do ay raaci karto qodobkan hadda 39 ku qoran oo markaa qodobka labaad ah xarafkiisa ja oo markaa arrintaasi markii ay halka mareysay Itoobiya waxay ku dhawaaqday 92 bishii September waxay ku dhawaaqday inay ku doorasho wadanka ka qaban ugu horeysay oo maamul noocan aynu maanta ku jirnaa oo ka dhisma dalka oo Cabdullaahi Masaad gudoomiye uu noqday waxayna heshay tirsiga ugu badnaa inay 84% wax ka badan yeelato nidaamka jirana wuxuu ogolaanayaa haday heerka gaadho inay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo inta badan gudiga fulinta inay yeelato halka iyadoo maraysa hawshuna ay fiican tahay waxa dhacay April 3 shir baa dhacay oo istaba socda 1994 bishii labaad waxa dhacay baarlamaankii Xasan Jire oo markaa inta laga soo raray la goday la keenay jigjiga markii uu fariistay wuxuu soo saaray in shacbiga afti laga qaado 18 saddex maalmood kadib waxaa la qabtay shirkii Harar ee odayaasha shirka waxaa ka soo qayb galay Malas laba nin oo duqow baa ka hadashay waxaa ka hadlay Garaad Maqtal Garaad Daahir iyo Ugaas Xasan oo ugaaska beesha Ciise labaduba waxay taageereen wixii uu ku dhawaaqay baarlamaanka oo ahaa in ummadana aayaheeda ay ka tashato oo afti laga qaado dawladda Itoobiya iyo TPLF arintaas way ka sii xanaajisay bishii April 17 waxaa shir kale oo ka dhacay magaalada Goday shirka waxaa la isugu yeeray odayaal fara badan mid og jirin oo si dhuumasha magaalada lagu soo galiyay hal hool baa lagu soo xareeyay dood baa su'aalo ayuu Malla Zanaawi halka ku weydiiyay su'aalihii uu ku weydiiyay jawaabtoodii waxay noqotay shacbigu iyo odayaasha inay kaga jawaabaan inay taageeraan go'aankii baarlamaanka iyo inay taageeraan shirkii odayaasha ee ka horeeyay dagaalka la leeyahay oo laf baa gashay amarkiisa wuxuu ka baxay hoolkii shirka ee markaa uu taagnaa Malla Zanaawi 17 April isagoon ku soo noqon xeradii brigade ee uu ka gutaa la goday isagoon ku soo noqon Asabe iyo gudigiisii golihiisii wasiirada isagoon baarlamaanka soo marin isagoo oo shirkii uu odayaasha kula kulmay taagan yaa wuxuu amar ku bixiyay in la weeraro fariisin kasta oo ay OLF ku leedahay gudaha dalka markaas intaa wixii ka dambeeyay waxay OLF gashay waji ka duwan wajigii nabadda wajigii dimuqraadiyadda ay wax ku raadinaysay wajigii qalinka ahaa ee ay wax ku doonaysay waxayna ku badashay inay istifaacdo mar haddii weerar lagu soo qaaday inay istifaacdo oo ay isbadbaadiso jiritaankeeda badbaadiso ayay ku badashay ilaa iyo maanta aan fadhino heshiiska maanta aan fadhino intii ka horeeyayna OLF waxay isdifaac ayay ku jirtaa xogayaad baad u mahadsan tahay waa taariikh dheer ma soo koobi karno
halganka dheer ee jabhadda ku jirtay ugu dambeyntii heshiiskii ugu dambeeyay jabhadda ONLF ee la yeelatay dowladda Ethiopia qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaasu maxaa kamid ah marka hore waxaan rabaa horta dadku inay ogaadaan kolkii dad qof la gumaysanayo iyo qof wax gumaysanaya markay wax ka dhaxeeyaan welibana dagaal arrintaasi ay isu rogto gacanka hadal marto waxaa ka dhaxeeya in la xalliyaay wax maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 midna ku dhamaanaya ma waa wax u baahan in la kala guro meesha Soomaalidu ay ka tiraahdo ooda dhacameed siday u kala sareeyaan baa loo kala guraa jabhadu iyadoo oo fahamsan culayska ay leedahay waxa ay raadinayso iyada oo fahamsan go'aankaasi dawladda qaadanaysa ee ama Ethiopia ama cid kale ee qaadanaysa khadhaadhka uu ku yahay iyada oo fahamsan in shacbiga Soomaaliyeed ay qasab tahay inay helaan aayaka talintii iyo gobonnimadii ay rabeen waxay qaaday talaabooyin kala horeeya heshiiska muddo dheer baa laga soo shaqeynay ilaa 2012 ayuu socday nimanka TPLF aha umaysan diyaar ahayn in arrinta wax ka qabtaan military iyo waxay adeegsanayeen iyo arrimaha macaaneyn heshiiskan hadda markuu yimid dawladda Ethiopia ee hadda xukunka haysata ee prime ministerka uu ka yahay Abiy Ahmed waxay muujisay kalsami in arrinta inay wax ka qabtaan diyaar u yihiin marka heshiiska waxa la leeyahay u galaa waxa loo galay waxa ugu muhiimsan la isku hayaa waa maxay dagaalku muxuu ka dhacayaa oo ay ONLF rumaysan tahay inuu yahay asaaskii bayskii loo dhigay sidii shacbiga ogaadeen iyo afti loo gaarsiin lahaa laakiin sidii shacbiga ay sugahayeen ahayd 3 bilood 5 bilood 10 sano 5 sano ma aftida lagu qoro waxaan shacbigayga u sheegayaa inay taasi u baahan tahay in process la maro arrintaasi si loo dhameystirana guddigii wada hadallada ee labada dhan wali sidii bay hawshoodii u wadaan waana arrin u baahan in si diblomaasiyadeed loo dhiraandhiriyo waxaan ku rajo weynahay markaan fiiriyo doorista shacbigayga markaan fiiriyo go'aanka ururku uu ka qabo arrinta aayaka talinta markaan fiiriyo mustaqbalka caalamku maanta sida uu dhigmahayo in arrintaasi durba iman doontaan aaminsanahay aayaka talinta ogaadane waa maasanta adigu aad u mahadsan waxaad ka soo bilowday taariikhda Mel Zanaawi ilaa Hayraman Dhasaalem oo ra'iisul wasaarihii ka dambeeyay maanta intiiba meesha masraxa siyaasadeed kuma jiraan waa Dr. Abiy Ahmed isaga Ethiopia oo horseeday isbedelada maanta ka hana qaaday jabhadihii Ethiopia ku kacsanaana ee ka saar liiska argagixisada Ethiopia kale ku raali galiyay maadaama isbedelo uu halkaas ay ka yimaadeen jabhadda mowqifyada hadda ka hor ay taagneed ma halkii bay taagantahay mise laftooda isbedelo la jaan qaadayaan aad baad u mahadsantahay horta jabhadu tanaasulaad fara badan bay samaysay laftigeedu haddii Abiy Ahmed iyo prime ministerku ay ku dhawaaqeen oo la finay argagixiso ahayn dagaalkii oo laf ku jirtay inuu dagaal xaq ah oo la fin automatic waxay uga jawaabtay inay soo dhaweyso prime ministerka hadalkiisii inay ku dhawaaqdo xabajoojin hal dhinaca oo iyadu ay go'aansatay waa waxyaabaha ugu adag ee qofka bini aadamku uu qaato inuu yiraahdo adigii xabadda igu riday yani xabad kugu marday adigu idil anu ku dili maayo waa waxyaabaha ugu adag marka waxaan leenahay go'aanka prime ministerku uu qaatay mid ka adag oo loo baahnaa baan qaadan laakiin haddii arrinta hoos loogu dago jabhadu tanaasulaad fara badan bay siisay waxyaabaha siyaasiga ah waa la isla dhiraandhirin karaa waa la rogrogi karaa laakiin waxaan rabaa shacbigayga inaan u caddeeyo aayaka talinta in shacbiga ogaadeen iyo waxay rabaan la weydiiyo oo la kama tanaasuli karto kamana tanaasuleyso kamana tanaasuli doonto go'aan iyada ay leedahayna maaha waa inay shacbigeeda halkaa gaarsiiso shacbiga dawladda Ethiopia waa inay la timaado kalsoonidii iyo dawladnimadii ay shacbiga Soomaaliyeed ee wadankan degan ku weydiin lahayd waxa iyagu ay rabaan taasaana noqonaysa tawaaqiciga ee ugu dambaysa ee soo afjari karta khilaafka geeska Afrika oo dhan taasaana aaminsanay laakiin ONLF xaq iyadu kama tanaasuleyso xaqna uma laha inay ka tanaasusho aftida waa maasanta xogay haddii aan taas su'aashaas lafteeda aan dib ugu noqono aftida ma waxa laga qaadayaa shacabka ogaadeenaya ama dadka asalku dadka ogaadeenka haddii aad noo kala saarto
ma inta shacabka ogaadeenaya mise waa guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo degta in ka badan 100 degmo wadankan kolkii si guud loo hadlo waxaa degan 38 qabaa'il oo Soomaaliyeed haddii la yiraahdo ogaadeen kaliya aftiha laga qaado aniga hadlahay hadda la wareysanaya meesha ka baxaya aniga xaqaygi marka xagee la geynaya dhaqanka ururku ma aha ogaadeen baanahay iyo ururku wuxuu leeyahay dhaqan loo soo galo iyo dhaqan looga baxo taa waa ta ururka kolkii la yiraahdo yaa afti laga qaadahaya aniga waxaan ka mid ahay dadka aftida in laga qaado u baahan ee inuu cadeeyo masiirkiisa inuu meel saara u baahan baan ka mid ah ogaadeenna ma ihi laakiin oo laf baan ahay oo hogaamiye ka ahay dadka cuqdad qabiil aniga ma qabo hadduu qofku ogaadeenimada dadkaasi waan la yaabanahay war annagaaba le ogaadeen ma nihin oo lafna hogaaminayne maxay nooga siinayaan oo ay annaga intay sharafta naga qaadaan maxay dad kale nooga siinayaan aftida waxaa laga qaadayaa shacbiga Soomaaliyeed ee wadanka degan iyaga oo qof ah ma aha qabiil reer hebel oo soo fayda ma adigu reer hebel baatay ama ogaadeen haw ama cid kale haw ma waxa doonto haw idinkoo qabiil soo fayda wax la yiraahdaa ma jiraan aftida laga qaadi ma aftida waxaa laga qaadahayaa qof kasta oo qaangaad ah oo wadanka ogaadeen iyo ku nool oo xaq u leh inuu cadeeyo meesha uu dhigahayo mustaqbalkiisa iyo aayihiisa siyaasadeed qof kasta oo xaqaale baa xaq u leh in laga qaado oo aan laftay ku dagaalamaysa ee ku hamiyeyna ee waajibku naga saaran yahayna waa taa wey Dr. Abiy Ahmed hadaladiisa waxa kamid ahaa jabhadda ONLF in ay dhigto qoriga isla markaana ay qalinka ku halganto taa waa sidarankaaga Abiy Ahmed horta ha ogaado in saan hadda ka hadlayo ONLF qoriga lamayna soo dhalanin iyadoo qalin wadatay timid dalkan ayadaa dhistay kililkan maanta lagu taamahaye ee dadku ayadaa dhistay amni bay ku dhistay nabadgelyo ku dhistay dawladnimo ku dhistay waa in horta qofku uu la garwaaqsado dawladda Itoobiya maamulkeeda iyo cid kasta iyo shacbiga waa inay garwaaqsadaan in ONLF waxay ku maqnad isdifaac u ahaayee uusan dagaal ahayn haddii marka ciddii ay iska difaacaysay ay tiri nabad baan rabaa aynu nabad ku wada hadalno waxay ka mid tahay astaanta rasmiga ee ONLF inay qalin iyo qori ku halganto oo ay qalinka hormariso Abiy Ahmed iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inaysan qorigii dib noogu celin waan dhignay waan ka nimid qalinkii shalay qasabkana laga qaaday baanu maanta ku dagaalamayna yeyna dawladda Itoobiya iyo maamulkeeda ka imaanin inay iyadu qoriga bilowdo aad baad u mahadsan tahay waxa tahay xogayaha golaha dhexe ee jabhadda ONLF mudane maxamed shariif cumar haddaan taa aan ka soo noqono xubnaha ku jira golaha dhexe ee jabhadda ma yihiin siyaasiyiin matalaya ama matali kara ummadda ku dhaqan deegaanka Soomaalida run ahaantii waxaan isleeyahay markaan aqoontaan oo fuleeyahay fiiri aad iyo aad bay ONLF u matali kartaa shacbiga Soomaaliyeed ee wadanka degan haddii laga fiiriyo dhinaca hogaaminta haddii laga fiiriyo dhinaca cadaaladda haddii laga fiiriyo dhinaca aqoonta siyaasiga waxaan aaminsanahay iska daa inaan dalkanaga matalo inaan geeska Afrika oo dhan maamuli karaan aaminsanahay xaqiiqada dhabta markii la hadlo caalamka horumaray ee reer galbeedka iyo kuwa la midka ahina way noo qirsan yihiin inaanu ka wacyi iyo ka yaani policy-ga ONLF inuu ka sareeyo dawlado waaweyn oo dimuqraadiyad ballaan ay ka jirto oo Afrikaan bal kuwa badan oo Yurub ah ayuu hogaanka ONLF habka u shaqeynayo iyo habka uu wax u agaasimo iyo habka uu wax u maamulo iyo habka uu uga qayb qaadanayo isu dheelitirka caalamka dawlado xor ah oo aad iyo aad yaanu kaga horeynaa haddii waqtigu noo saamaxo inaan helo nidaam dawli inaan ku maamulo dadka yaga waxaan leenahay si fiican baan u maamuli karaa laakiin waxaan leenahay bal dadka yagu marna wayna tijaabiyeen oo wayna mahadiyeen oo markii hore aan kililkan dhisaynay wayna tijaabiyeen wayna mahadiyeen cadaalad waxay tirsanayaan maalinkii inay ugu dambeysay bal mar lamaadna hana tijaabiyaan si aan ugu dhamaystirno wixii ka dhinay naga sugahayeen waa maasta
haddii afti laga qaado bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida jabhaddu ma filaysaa in ay isku raaci karto bulshadaas in Ethiopia inteeda kale laga go'o annaga shaki nagama jiro in shacbiga waddankan degan ee Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay diyaar u yihiin inay mustaqbalkooda hogaamiso jabhadda oo taa shaki nagama jiro haddii ay ku codeeyaan in Ethiopia ka mid noqdaan waa go'aanka shacbiga si toos ah oo la fogo hoggaansamaysa dhammaan ciidamada jabhadda ONLF ee ku noolaa dalka dibadiisa ama wadamada dariska dhammaan ma yihiin kuwa soo wada xarooday mise qayb ka mid ah ayaa soo xartay inta kalena waxay joogaan dalka dibadiisa ciidanku horta wuxuu leeyahay farsamooyin gaara arrimihiisana inta badan lagama hadlo warbaahinta lagumana faahfaahin karo laakiin ciidankanagu wuuna joogay isagoo fara badan buu gudaha ogaadeenaya ku jiray kii naga maqnaa wax diidaya inuu soo galana ma jiro kol hadduu kolkii shalayna uu joogay maantana wuu imaan haddana wuu sii joogi doonaa waana ciidamada iyaduna waxay degan yihiin deegaamo u gaara oo ay jabhaddu ku og tahay oo ay hawl maalmeedkooda ka fushadaan taa haddii aan ka gudubno ma jiraa barnaamij qorshe siyaasadeed oo dadkii ka barakacay dhulka ogaadeenaya ee ku nool wadamada dariska sida Kenya oo in ka badan nus milyan qof ay jabhadda darteed uga barakaceen waxay ku nool yihiin wadamada dariska gaar ahaan Kenya xeryaha Ifo Dadaab xagar dheer dhagaxley kalbiyay meel badan bay ku nool yihiin dhibaatooyin aan la soo koobi karin baa haysta dadkaas haddana heshiiskii waa warbaahinta ay kala socdaan meesha wax marayaan marka ma ballan qaadaysaan in aynan mar dambe jabhaddu aynan waddankii dib uga bixin oo qalinka ku halganto isla markaana ugu baaqaysaan in ay ka yimaadaan nolosha adag ay ku jiraan oo dadkooda wax la qaybsadaan kalsooni bay u baahan yihiin bulshada haatanba TV-ga ka daawanay aan laba u kala qaado marka hore dadka naga qaxay ee dhibaatada furaha badan qurbaha kala kulmay iyo kuwa kaba si dhibka badan ee dalka iyaga gudihiisa lagu dhibaatay oo kaba dhib badan ku weeqay labadaba aad baan uga danqanaynaa dhibaatadooda waan ka xunahay waan ka tacsiyeenaynaa wixii dhibaha dhacay caam ahaan inay dadka iyaga soo noqday ee isku soo noqdaan dalka iyaga waan ugu baaqaynaa jabhaddu waa run barnaamij siyaasi oo waliba cad bay kala daarantaas waxayna kala hadlaysaa dhammaan cid kasta oo arrintaasi lug ku leh oo ay ugu horeyso dawladda deegaanka maanta ka talinaysa dawladda Ethiopia hay'adaha samafalka international community-ga dhammaantood baan kala hadlaynaa waana mas'uuliyadna saaran oo aanan marna inaanu ka leexleexana ama aanu ka gilgilana aanan diyaar u ahayn waanan soo celin doonaa iyaga oo si qorshaysan u soo noqon doona arrintaasna waxaan la kaashan doonaa oo boqolkiiba boqol aanu isleenahay haddana meel fiican bay maraysaa hay'adaha samafalka oo ugu horeysa hay'adda qaxootiga qaran ee UNHCR shacbiga iyaga dhibkiisa kuwa dibadda joogana barnaamij baanu u samaynaynaa cad oo leeyihiin kuwa gudaha ku barakacay ee dhibaatada ugu faraha badan ay ku gaadhayna waanu ka fakaraynaa barnaamij baan ka leenahay cid walba oo ku dhibaatootay halgankan waxaan isku dayaynaa inaan dhayno boogtii ka soo gaadhay halgankan iyada oo ay ahayd xorriyadoonnimo loo siman yahay haddana maadaamaan annagu mumaathiliinnahay oo ururkii aan annaga nahay shacbigii matalayno meel fiican inaanu saarnaan jecelnahay barnaamijka qaxootiga ama dibad ha ahaado ama gudaha ha ahaado labadaba arrinta ma laga yaabaa oo lef inay baxdo oo aan lef shalay ma bixin waa in arrintaa fahanno wey oo aan lef mayna bixin dagaal mayna gelin haddii sharciga islaamka inagu islaam baan nahay qofku hadduu aqalkaaga iyo xaaskaaga kugu qabsado waxaa waajib kugu noqonaysa inaad istifaacdo haddii la yidhaahdo hadday ujeeddadu tahay oo aan lefay mar dambe isma difaaci kartaan haddii laydinku xadgudbo su-aashaa jawaabteeda shacbiga ogaadeen ayaan u daynayna
قدلتي وقول قدلتي حريمو وأقول لك قبض وين شيء عنقر تاديني شعبكو كنت ذوق يتقيل مني مو هو جايلمو قورتي ذاتكاي قربضين ذوق أبنا ذاكبيو وقرارو إشكايقو قاد عدك قبو عدم صنقليو قادا كدو Deshka yago